King Video Production. iyo 1940 ayuu ka bilaabmay qiimaha waaweyn ee dalkaasi Uganda. Fayraska Zika magaciisa ayaa ka yimid luqadda dalka Uganda. Fayraskan ayaa saameyn ba'an ku haya in ka badan 33 dal. Daanyeer yar oo xorriyadiisii laga qaaday ayaa la tilmaamaa inuu dhaliyay fayraska Zika. Zika sanadkii 1952 ayaa la ogaaday shakhsigii ugu horreeyay ee uu saameeyay fayraskani, isaga oo ku fiday qaaradda xanuunada ee Afrika kadibna uga tallaabay Aasiya 4 sannadood kadibna ku faafay dunida oo dhan, iyadoo 7,000 oo jeer la ogaaday khatarta rasmiga ah ee fayraska Zika, iyadoo khubarada caafimaadkuna ka warbixiyeen in uu sanadada dhow uu ku faafi doono dunida oo dhan. fayraskan oo ay fidisa kaneecadu ayaa saameyn kara 15 qof saacadiiba. sidee ayuu ku dili karaa fayraska Zika? wuxuu ka mid yahay fayraska Zika dalada fayrasyada ah ee ku bahoobay magaca yellow fever. calaamadaha lagu garan karo ayaa ka mid ah jilba xanuun, xumad saa'id ah, araggaaga oo daciifa, isagoo xanuunkani uu kaaga muuqan karo muddo 24 maalmood ah, isagoo oo weliba calaamad ahaan iyo symbol ahaan shabaha fayraska kale ee dhigiisa ah ee Ebola. carruurta fayraskani ku dhasha ayaa dunida guudkeeda ku sii noolaan kara 150 maalmood oo keliya. sidoo kale fayraska Zika wuxuu naafeeyaa haweenka xilliyada uurka, isagoo ka dila ilmaha markasta oo ay haweenaydu ay uur qaado.